Asalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalka maanta. Muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa ilmaha dhididka tirada badan leh habeenkii. Xilliga habeenka ilmaha dhidido ayaa muuqaalka kaga hadli doonaa. Soo dhawaada marka. Haddii ay tahay markii kuugu horeysa ana soo booqataa subscribe noo saar gambarelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddaa hore noola joogtana like noo saar asxaabtaadana usii share garee. Laba u qaybin doonaa waxyaalaha ku sababa ilmaha in habeenkii ay hurdaan. Qayb waxaan ka dhigi doonaa qayb ay sababeen ama ay keeneen cudurro iyo qayb kale oo ah dabiici oo waxyaalo dabiici ah ay keeneen oo aan jirrooyin ahayn. Labadaas ayaan u kala qaadi doonaa. Haddii aan ku hormarno midda ay keentay jirrooyinka ilaa iyo dhowr qodob ayaan usii kala qaadi doonaa insha Allah. Waxaa laga yaabaa calaamada koowaad aan ka dhigaynaa in ay keento in cunugii calcium jirkiisa ay yar tahay. Haddii cunugii calcium fiican jirkiisa aysan lahayn oo xadka loogu baahnayo kale cunugii calciumta ay ka yar tahay way keeni kartaa in cunugii habeenkii uu dhidid yeesho oo habeenkii uu dhidido way keeni kartaa. Tan labaad waxaan ka dhigaynaa in cunugii uu wax la yiraahdo waxa jira jirka bani'aadamka wuxuu leeyahay wax loo yaqaan hormoon la yiraahdo thyroid. Marka haddii hormoonkan thyroidka uu shaqadiisii uu active uu yahay uu ka badan yahay oo kale way keeni kartaa in cunugii uu dhidid keena asagana uu dhidido way keeni kartaa. oo haddii activity ay ka jirto kale hormoonkan thyroidka way keeni kartaa in cunugii asagana uu dhidid yeesho. Tan saddexaad waxaan ka dhigaynaa daawooyinka qaar ayaa keeni karo in cunugii dhidid uu yeesho. Daawooyinkeena ayaa jira oo cunuga haddii daawooyinka qaar marka ku bilowdo kala dhididka ku aragtay daawooyinkaas ayaa keeni karo. Tan afraad waxaan ka dhigaynaa in cunugii uu uu xanuunsan yahay oo kale uu bacteria ama virus oo kale ay soo weeraraan oo kale cunugii uu xanuunsan yahay oo way keeni kartaa in cunugii asagana uu dhidid yeesho. Waxaa kaloo kale keeni karo in cunugii dhidid uu yeesho dhidido wax loo yaqaano sweet glands marka ayagana ay active yihiin oo ay shaqeynayaan ayadana way keentaa in cunugii uu dhidid badan yeesho oo sweet glands waxaa la dhahaa qanjiro soo daayay dhididka. Haddii sweet glandskan ay active yihiin ayadana way keeni kartaa in cunugii dhidid tiro badan uu yeesho. Waxaa kaloo keeni karo cunuga haddii cudurrada wadnaha ku dhaco kale cudurrada qalbiga uu qabo ayadana way keeni kartaa in cunugii dhidid tiro badan yeesho. Waxaa kaloo keeni kara oo dhankan cudurrada ugu dambeysayna in cunugii uu habeenkii markuu hurdayo kale wax yar oo daqiiqado yar oo ilbiriqsi yar daqiiqado yaan dhihin ilbiriqsi yar oo kooban in cunugii naqasku uu ku dhago kale. Maahan wax markaas oo kale hooyada ay dareemi karto kale in naqaska wax yar uu ku dhago cunuga ayadana way keeni kartaa dhididkan tirada badan in uu ku yimaado sakana yar uu ku dhago. Haddii intaas aan ugu soo baxno waxyaalaha jirrooyinka ah ee keeni kara dhididka in cunuga uu dhidido waxaan gelaynaa qaybta labaad oo ah waxyaalaha dabiiciga ah uu keeni karo. Waxaa keeni karo in jawiga qolka kale uu kuleel yahay oo cunugii marwaxad aysan u daarnayn ama daaqad aysan u furnayn ama irid aysan u furnayn oo cunuga jawiga guriga ku jiro kale uu hurdayo uu hur yahay way keeni kartaa in cunugii dhidid badan uu yeesho. Waxaa kaloo keeni karo hooyooyinka maasha Allah waa dadaal badan yihiin in cunugii laba shay camal loo galsho la soo kor galsho culus ayadana cunuga ku keeni kartaa inuu dhidido. Haddii cunugii laba shay oo kale hooyada aysan u gelin laakiin asagoo halkiisa shay wato kale busto weyn lagu hubiyo kale asagana cunuga markaas oo kale wuu dhididi karaa. Marka waxaa habeenkii qurux badan cunugii intaan la seexin oo kale in loo qabeeyo jawiga qolkana jawi macquul ah cunuga uu ku hurdi kara laga dhigo dhar tiro badan aan loo gelin. Haddii xilliga qabobaha aan lagu jirin oo kale in cunugii dhar tiro badan aan loo gelin oo hal shay ku filan tahay way ka cafisaa inuu habeenkii ku seexdo. Intaas aan ku soo koobaynaa qaybta labaad oo ahayd waxyaalaha caadiga keeni kara aan jirrooyinka ahayn. Maxaa lagu daaweyn karaa marka? Haddii ay dhididkan uu keenay qaybtan dambe hadda aan ka hadalnay oo ah waxyaalaha dabiiciga ah sida in hooyada dhar badan cunugii uu galisay inay busto ku hubiso kale in jawiga qolkii uu kuleel yahay kale taas hooyada ayaa xalin karto oo in qolkii ay jawigiisa jawi ku hurdi karo ay cunuga ugu dhigto dharka tirada badan ay ka dayso bustahan ay ka dhaafto.
haddii cunugii maxaa la dhahaa ay ku keento ayadana in jirooyinkan aan kasoo hadalna ay keenaan oo kale sida in calciumta ku yarto oo kale in thyroid activity ay jirto in sweet gland activity ay jirto oo kale inay keentay daawooyinka qaar cunuga uu qaadanayo oo kale inay keentay in virus ama bacteria oo kale cunugii soo weeraran ay keento oo kale in cunugii cudurada qalbiga uu qabo oo kale haddii waxyaalahaas ay keenayna waa waxaas oo kale hadduu cudur keeno cunuga markaas oo kale ay ku keento waxaa kala xiriiri kartaa dhakhtar si dhakhtarka uu asaga markaas uu cunugii baaritaan iyo daaweynka uu u sameeyo way keeni kartaa waa u geyn kartaa dhakhtarka si markaas dhakhtarka uu cunuga u arko xaaladii cunugina insha Allah wax fiican looga qabto oo loo daaweeyo cunugii marka haddii cunug dhidi tiro badan uu leeyahay oo kale waxaa fiican hooyada in cunugii dareero badan siiso biyo badan ay siisaa si dhididkan amlaaxdii iyo biyo badan ay ku baxay cunugii maxaa la dhahaa dib u kabasho uga helo jirkiisa oo jirka aan dhididku waxa la socda amlaax waxa la dhahaa la socdaan macdanaha la socdaan marka cunuga markuu saas uu dhididkiisa u badan yahay oo kale hooyada hadii aragto sida in cunugii jir qaral oo ku imaan oo kale korkiisa uusan qalalin in hooyada macdantaas ka baxdo oo kale ay u bedesho cunugii biyo badan ay siiso ayaa qurux badan si jirkiisa biyo ka baxay uu dib uga helo intaas ayaan kusoo koobaynaa ciwaanka maanta ee ahaa maxaa sababa dhididka tirada badan ee xilliga habeenkii ah ilmaha qaar ay dhididaan ku yimaado maxaa sababa marka intaas ayaan kaga bixinaa insha Allah haddii ay tahay markii kuugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelka furso fiidiyowyada cusub ku soo gaaraan haddaa familka ka tirsan tahayna like noo saar asxaabtaadan u soo share garee soo dhawaada